ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa waxa uu ka hadlay doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xubnaha ka imaanaya gobolada waqooyi ee Somaliland iyo u diyaar garowgooda. Mahdi Guuleed ayaa waxa uu sheegay in ay u diyaarsan yihiin qabashada doorashada golaha shacabka xubnaha dhankooda ka imaanaya isla markaasina ay diyaarsadeen qorshihii ay ku gudagali lahaayeen doorashooyinka ayna isku afgarteen ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo dhammaan siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada waqooyi ee Somaliland. doorashadaas bilaabantay waa inay hana qaadaa, waa inay dhamaataa, geedi socodkooduna ay naga soo gabagaboobaa waqtigeediina marka baarlamaanku isu soo dhamaado shaqadii u taalay ee iyaga ay ahayd inay ka gutaan ay ka gutaan. annagu haddaanu nahay reer waqooyi, ilaahay waa iskaaga afgaradsiiyey aqalkii sare ee ugu qurux badnaa marka doorashooyinka dhacay la eego ee julub culustu ka soo baxeen ayaa ay doorteen Somaliland. wasiir Saalax oo khabiir dastuurka ku xeel dheer iyo gafanayska ah, wasiir Dubbe oo in badan maaragtay maxay oran jireen qolyihii Dubba dhawaaqay saqdi dhexe markii halka la maray iyo dharkii Dubbe, waa professor Cabdi Ismaaciil Samatar, waa Cabdi Xaashiyo soo laba ka caleeyay, waa wiilal iyo gabdhaba 12 culus. waxaanu soo wadnaa inaan 46 u dhigma 12 kaas la doorto oo si xor oo xalaal runtii tartankooda tusaale u noqdaan. 12 kaasi siday tusaale ugu yihiin aqalka sare, 46 kuna tusaale u noqdaan baarlamaanka intiisa kale. taasaan damaanad qaadayna. annagu markii aan fiirinay Soomaaliya waxay u baahan tahay inay kala nabad gasho, doorashada ku kala nabad gasho, laakiin waa aragtaan waa laga maagay doorashadii golaha shacabka in lagu dhiirado. annagu waanu ku dhiiranaynaa toddobaadka soo socda. dhanka kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay in doorashada xildhibaanada golaha shacabka garabka ka imaanaya Somaliland ay bilaabanayso maalmaha soo socda, ayna isla garteen siyaasiyiinta gobolada waqooyi in si degdeg ah loo gudagalo doorashada. ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa maamul goboleedyada ka dalbaday dhankooda in ay si degdeg ah u bilaabaan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si loo soo gabagabeeyo doorashooyinka dalka. ilaahay mahadiis waa ku guuleysanay in labadii garab ee walaalahan Somaliland ama gobolada waqooyi ay heshiiyaan lana yimaadaan sifo transparent ah oo nadiif ah oo cad. doorashadoodina siday ku dhacday alxamdulillah, cid kastoo ka qayb qaadatay ilaahay ayaa mahad leh. haddana saan ku heshiinay insha Allah berri ay ka bilaabato sidaan ku heshiinay ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo tiimkiisa Somaliland ama gobolada waqooyi doorashada iyo diyaar garowgooda ay bilaabanaysaa. wiiga soo xigana waxaan rajaynayaa hadduu Allah subxaanahu wa ta'ala idmo in xildhibaanadii ama golaha shacabka ugu horeeyay ay Somaliland ama gobolada waqooyi ay halkaan ay ka soo baxaan insha Allah. sidoo uu sheegay hadalkiisa aan adkeenayaa dowlad goboleedyada waa run. waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay noogu soo gabagabowdo. cidna ma doonayso aan aniga ugu horeeyo inaan halkaan sii joogno. habeen kasta waxaan Allah ka baryaa inuu hawshan sida ugu dhaqsiyaha badan nooga soo gabagabeeyo annagoo nadiif ah, shaatigayga caad yahay, cidna is dhagaxyeen, cidna is dhaawicin, cidna aysan isdilin. aan halkaan ka tagno dowlad iyo nidaam cusub aan ku wareejino hawshan. diyaar ayaan xaggayga u ahay insha Allah. saaxiibadayna waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay hawshaas noogu soo gabagabowdo. doorashooyinka Soomaaliya ayaa dhowrkii bilood la soo dhaafay soo jiitimayay inkastoo horumar laga sameeyay dhanka doorashooyinka xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. haddana waxaana weli si rasmi ah loo soo dhameystirin xubnahaasi, iyadoo dhanka kalena aysan ergooyinkii iyo diyaargarowgii doorashooyinka golaha shacabka weli ka bilaaban dhammaan dowlad goboleedyada iyo magaalooyinkii loo qorsheeyay in lagu qabto doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.